Galcad Media News. Galcad Media News. bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada daawadayaal warka Galcad Media qodobada ku daawan doontaan waxa ugu dooran dagaal dad badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen oo shabaab iyo dad xoolo dhaqato ah ku dhex maray gobolka Bakool Sheekh Abuukar Cumar Cadaan kana mid ahaa aasaasiyaashii maxkamadaha Islaamka oo sheegay in dadka reer Muqdisho ay ku bannaan yihiin dad laga xirtay wadooyinka iyagana ay keensadeen dhibaatadaasi dawladda Soomaaliya oo sheegtay in maamul uusan Kismaayo ka jirin iyagana ay kontaroolayaan diyaaradaha aadaya Kismaayo iyo kuwa ka imaanaya Ahmed Madoobe oo soo saaray go'aan aad u culus golaha wasiirada Soomaaliya oo meel mariyay miisaaniyadii 2019 iyo sanadkii tagay 2018 warka dibadda daawadayaal waxa ka mid ah Mareykanka iyo dalalka Khaliijka oo ka tashanaya weerar culus oo lagu qaado dawladda Tehran hagaag haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkaasi aad u hesho warar ku saabsan akhbaaraadka caalamka intii aad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News. ganacsada Abuukar Cumar Cadaan ayaa sheegay in dadka Muqdisho ay mudan yihiin in la ciqaabo ganacsada Abuukar Cumar Cadaan ayaa sheegay in dadka Muqdisho ay mudan yihiin in laga xiro jidadka isla markaasna ay rafaadaan isagoo taas sabab uga dhigay in iyaga yihiin balaayo waxaas keensaday ganacsadaha ayaa sheegay in Muqdisho lagu dhacay hanti badan oo dad shacab ay leeyihiin dhiig badanna lagu daadiyay midaasna aan weli laga toobad keenin waxana la iska weydiin wuxuu sheegay in fidnada Soomaaliya ay soo bilaabatay sanadkii 1960kii markii uu talada la wareegay Siyaad Barre ilaa haddana xal loo leeyahay wuxuuna tusaale u soo qaatay in dadkii riday Siyaad Barre ay awoodi waayeen inay dalka xal u keenaan ayna Muqdisho u kala jareen laba qayb ganacsada Abuukar Cumar Cadaan ayaa sheegay in haddii la rabo in laga baxo dhibaatada dadka Muqdisho haysato loo laabto alle isla markaasna la iska dhaafo dastuurka la isku xukumayo oo ku tilmaamay inuu yahay arrin gaar u ah gaalada Abuukar ayaa sheegay in madaxweynayaashii dalka soo maray oo ugu dambeeyay madaxweyne Farmaajo uu midka ka dambeeyo wax ka sheego isagoo sheegay inaysan waxba isdaamin wuxuuna tusaale u soo qaatay Farmaajo oo sheegay inuu horay u ballan qaaday inuusan xiri doonin jidadka Muqdisho markii dambana laga waayay ballantii uu ka sii daray madaxweynihii isaga ku horeeyay Xashan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in markii Farmaajo tago oo imaan doono mid isaga ka daran dadkana ay dhihi doonaan Farmaajo ayaa inoo roona ugu dambeyntii wuxuu xusay inaysan Soomaaliya dawlad ka shaqeysa ka dhalan doonin inta uu dalku leeyahay 6 madaxweyne sida uu hadalka u dhigay Sheekh Abuukar Cumar Cadaan kana mid ah hogaamiyaashii dalka soo maray inta dastuurku meel gaara odayaal u fadhaan iyo niman ahlu naara dastuurka ninkii beeshay dastuurka qaata waa ahlu naar quban gaalna waay haddii aan taas laga leexan ee laga xishoodo dhibkan iyo cariigan waa lagu jira Farmaajo roona idowleedan arkay Farmaajo roona idowleedan Farmaajo kiidahay ugu dambaysan 2 sano bana laga jooga haddana jidna xirma jidna la waxay ma safrina ma waxayna ma birigan taa la jooga qofku isma xukumo hawadiisa u raacay ninkii asaas oo amaantam tan sano waxaan tacbaan ku waayo ma lahay iyo fakhsh leeyahay kacanka inta waxaan hay waa la ogaayo waxay dadka dad ogaan jiro ka markaan hadduu tagay in lamadin nimo la dagaalaysa jidka loo kala xiraantan waxa uu kala xiraayna waxay ahayd cadawga Soomaaliya cadawga Ilaahay haddana waaga inaan dhulxiyay aan calooshooda ku jirnaa haddii lamadin nimo calaamad yaciid halkooda lamadana haddana Cabdiqaasim la soo dhis wax
tii ka xanuun badanaa lagu soo go'aansho la yiro 4 beelood iyo bar 4 beelood iyo barki say sii socotaan dam waxay jireen 6 madaxweyne ilaahina waxa uu leeyahay lama ilaha dilay arad waa fasaadin saal 6 madaxweyne dal washaqay hal walban halka ka dambeeyay ee halka horreeyay waayay asrana ka sii wax maahay bari waxaan ku soo gabagabaynayaa haddana loo leexan dariiqa ilaahay oo ilaahay dadkan waa muslimiin iyo ayo ladina amro dilay waa muslimiin oo hadda qofka hal mar rabta Soomaali ku baarka ee haddana la garan oo Soomaalidu la soo bixin oo dhaqanka ilaahay suuqay la qaadan golaha wasiirada Jubbaland oo kulan xasaasi ah ku yeeshay gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose golaha wasiirada Jubbaland oo kulan xasaasi ah ku yeeshay gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kulanka waxa shir gudoomiyay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyadoo inta badan diiradda lagu saaray xaaladda cakiran ee maamulkaasi ugu horreyn kulanka ayaa waxa lagu soo hadal qaaday dadaalada lagu dhameynayo khilaafka ka dhashay doorashadii dhawaan ka dhacday Kismaayo taas oo ay hurmud ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland sidoo kale waxa kulanka looga hadlay arrimaha nabadgelyada waxaana la isku raacay laga bilaabo 20 bishan oo maanta ah in shirar iyo banaanbax ruqsad la'aan ah Kismaayo lagu qaban karin waxa kale oo ciidamada amniga Jubbaland la faray inay muujiyaan feejignaan iyo taxadar dheeri ah si ay uga hortagaan suurtagalnimada falal amni darro ka dhaca halkaasi ugu dambeyn shirka golaha wasiirada Jubbaland ayaa looga arrinsaday xaaladaha bini'aadanimo ee ka taagan gobolka Gado iyo Jubbooyinka iyadoo hay'adaha ku shaqada leh la faray inay warbixin ka keenaan xaaladda nololeed ee ka jirta gobolkaasi waa shirkii golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland waxa lagaga hadlayay nabadeyntii tabashooyinkii ka dhashay doorashooyinkii la soo dhaafay wuxuu goluhu go'aamiyay in la dardargeliyo wada hadallada lagu xalinayo tabashooyinka ka dhashay doorashooyinkii dowlad goboleedka Jubbaland taasoo si toos ah u taaban doonta cid kasta oo wax taabanaysa أنا رجينا إن يصير بسامي له فصل دمانته إن شاء الله. قضب كصدحات ما أنت كلها وزير هذا اللي قدر وها قضب ورينا الله اللي معلومة اللي جه اللي وحالة بني آدم نمو الدجاجة ذا شبلانا وحكتر دجاجة ذا شبلان حالة بان وأوار يبيلانا تاسو كنتين دبعت بدني أي دجاجة بدني أي هيساتو waxaa soo kordhay caafimaad darro dhaqaale xumo taasoo sabab ay u ahayd xanibaadihii diyaaradihii ay dowladda federaalka ay xanibtay ayaa ka soo baxday xaalad bini'aadanimo oo caafimaad darro iyo mid dhaqaale darro ay ka soo baxeen waxaan beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan xaaladaha gargaarka bini'aadanimo ee soo wajahay deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyay xayiraadii dowladda Soomaaliya ay ku soo rogtay diyaaradaha aadaya iyo kuwa ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Jubbaland wasiir Omar ayaa sheegay in amarka lagu soo rogay diyaaradaha aadaya Kismaayo ay salka ku hayso inaysan jirin maamul kontrooli kara diyaaradahaasi iyagana ay ku qasban yihiin inay hubiyaan diyaaradaha aadaya magaaladaasi wasiir Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa tilmaamay inaysan jirin xanibaad la saaray garoonka magaalada Kismaayo balse go'aanka dowladda uu yahay mid lagu ilaalinayo danta guud ee dalka Omar ayaa sheegay in inta laga helayo maamul ay ku qanacsan yihiin dowladda Soomaaliya ee beesha caalamka ay wadi doonaan kontroolka diyaaradaha ka imaanaya Kismaayo iyo kuwa aadaya dhawaan ayay markii dowladda Soomaaliya ay xayiraad ku soo rogtay diyaaradaha ka imaanaya ama ka degaya Kismaayo in ay soo maraan garoonka Aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho si loo hubiyo wax la qabatay haba yaraatay oo saaran Jubbaland especially Kismaayo ma jirto diyaaradda rabtay inay Kismaayo aado oo si sharci ah wadanka ku soo
gasho way tegi kartaa sidii markii horeba ay u tegi jirtay meelaha ay ka jiraan maamulka rasmiga ah ee dowladda Soomaaliya federaalku ay aqoonsan tahay iyo international community ay nala ogyihiin dhammaan diyaaraduhu way tegi karaan wayna ka bixi karaan sababtoo ah waxyaabaha soo galaya iyo waxyaabaha ka baxayo iyaga ayaa kontroolaya mas'uuliyadaasna qaadaya maamul aan ku aamino ayaa jooga inaynan wadanka soo gelin waxyaabo aan laga ogoleen wadanka oo illegal ah inuusan soo gelin kismaayo maamul kama jiro sidaas awgeed ayaan rabnaa inaan xaqiijino oo kaliya waxa ka soo galaya waxa ka soo degaya waxa ka dhoofaya inay yihiin wax waafaqsan sharciga Soomaaliya mas'uuliyadaasna anaga ay nasaarantahay dowlad federaal ah wararka ka imaanaya deegaanka Yamyam oo ku yaala duleedka degmada Xudur ee xarunta gobolka Boqol waxay sheegayaan dagaalamayaasha shabaab iyo dad xoolo dhaqato ah oo dagaal aad u qaraar ku dhexmaray deegaankaasi dagaalka ayaa yimid kadib markii ay kooxda shabaab si bob leh xoolo uga qaateen dadkii ku noolaa deegaankaasi dadka deegaanka oo is abaaburay oo la baxay Cali Qaran ayaa deegaanka Yamyam in muddo ah kula dagaalamayay al-shabaab waxaana markii dambe ay ka soo furteen xoolihii ay ka qaateen iyadoo durba goobta ay gaareen ciidamada xoogga dalka u gurmaday dadka shacabka ah ugaas Cali Dir oo kamid ah abaabulayaasha weerarkan kana mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in iska caabiyeen xoolihiina ay ka soo furteen al-shabaab inta loo yahay dagaalkaas waxa ku geeriyootay ilaa 6 qof oo shacab ah iyo 2 ka tirsan al-shabaab golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ansixiyay ku noqoshada miisaaniyada 2019 sidoo kale golaha waxay ansixiyeen miisaaniyada sanadkii taga 2018 oo dib u eegis lagu sameeyay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo shir gudoomiye shirka golaha wasiirada guud ahaan looga hadlay dhaqaalaha iyo deen cafinta laguna ansixiyay ku noqoshada miisaaniyada 2019 iyo xisaab xirka miisaaniyadii 2018 wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa ugu horreyn golaha uga warbixiyay natiijadii wanaagsaneed iyo shirkii dhawaan Addis Ababa ku dhexmaray dowladda Soomaaliya ee sanduuqa lacagta adduunka markaana warkii dibadda Mareykanka ayaa Sacuudi Carabiya iyo dalalka Khaliijka kala tashanaya jawaabtii laga bixin lahaa weerarkii lagu qaaday xarumaha saliidda Sacuudiga kaasi oo ay ku eedeeyeen Iiraan xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa weerarkaas ku qeexay dagaal lagu qaaday boqortooyada kani waa weerar aan nuuciisa horay u arag Iiraan way beenisay inay wax luga ku lahayd weerarka waxaana sheegtay kooxda Xuutiyiinta ee Yemen ka dagaalama laguna xantay in Iiraan ay taageerto madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in jiraan habab badan oo aan dagaal ahayn oo Iiraan lagu jawaabi karo wuxuuna amray cunaqabateyn dheeri ah oo la saaray Tehran daawadayaal waa naga inta warkii aad kala socoteen galcad media haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawade subscribe channelkan galcad media news galcad media news